degmada aaday baa cadabay leedahay ummada waxa dhihaysa shabaaba soo galay war been weeye waxaana soconayn weeye dhalanteed weeye riyo weeye aqli yari weeyaan haatan waxaynu gudaha u sii galeynaa degmada aadan yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxaynu galeynaa gudaha xaafadda waxaynu ka nimid dhinaca iyo saldhig military oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin duleedka degmada aadan yabaal safarkeenan waxa uu ku wajahan yahay xaaladda guud ee gobolka Shabeellaha Dhexe howlgallada soconaya iyadoo xilligan ay la hadleen qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe ay ka soconayaan howlgallo iyo dagaalo u dhaxeeya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo sidoo kale dadka deegaanka waxaanu idin soo tubin doonaa warbixinada rasmiga ah ee ku saabsan howlgallada ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dadka deegaanka ee ka dhanka ah kooxda al-shabaab fiicantiin ما شاطر ما عيروسين يهرم سيتين ماشان آذن يبال واي مهو هاي ساك حلو بري هاي صون كورما هاي ترى أنا عيارنا يا ما يا ما سنت يا أيوة عيارنا يا halkani waa degmada aadan yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxa furan ganacsigii degmadan dadka ayaa guryahooda si caadi ah u degan wax dhibaato ah kama jirto ama cabsi markaasi laga qabo dagaalo halkan ka dhaca dadka halkan ku nool ayaa waxa ay sheegeen in ay nabad ay ku waabristeen nabadna ay ku joogan degmadooda iyadoo ay furan yihiin goobihii waxbarashada ee degmada waxa halkan si buuxda gacanta ugu haya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya ciidamada ama xoogaga macawisleyda ee ka dagaalamaya gobolka Shabeellaha Dhexe waxa geesta kale ku sugan caruur markaasi iyagu taraq ku ciyaaraya qaadanaya jawigooda maalintii iyaga oo ka yimid goobtoodii waxbarasho ee dugsiga Quraanka xaaladdu waa mid degan mana jirto wax dhaqdhaqaaq ama cabsi ah oo degmadan ka jira waxa jiray warar laga baahiyay degmadan oo ah in dadkii deganaa ay ka barakaceen laakiin warbaahinta halkan timid maanta uma muuqato taas ee waxa uu muuqanaya in dadkii halkan deganaa ay si caadi ah u degan yihiin isla markaana ganacsigu uu furan yahay dhaqdhaqaaqii kale ee magaaladana uu si caadi ah u shaqeynayo gaadiidka ayaa si caadi ah uga dhex shaqeynaya degmada aadan yabaal iyadoo ganacsiguna uu furan yahay sidaad arkaysaan qaar ka mid ah dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta Shabeelle ayaa iyagu waxa ay ka waramayaan xaaladda degmada aadan yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe kadib dagaalo ka dhacay qaybo kale oo ka mid ah gobolka oo al-shabaab iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku dagaalameen waa kuwan dadkan oo iyagu markaasi ka hadlaya nabadda iyo sidoo kale xasiloonida iyo kalsoonida ay ku joogan degmadooda bismillaahir rahmaanir rahiim wa salaamina ummadda Soomaaliyeed maanta waxa joognaa degmada Aadeebaal dad baa cadow ku ah degmada Aadeebaal waa degmo qadiimiya degmada Aadeebaal cadabay leedahay ummada waxa dhihaysa shabaaba soo galay war been weeye waxaana soconayn weeye dhalanteed weeye riyo weeye aqli yari weeyaan degmada Aadeebaal waa degmo qadiimiya waa degmo intaasoo sano qawaariidka laga xuray degmada Aadeebaal been waa shabaabu ma dhaw shabaab 100 kiiloomitir ka soko uma jira 100 kiiloomitirna ciidamo Soomaaliyeed ka sokeeyo waxaas waa been dukaamada ganacsiga waa furiyihiin dadka shacabku waa joogan wax dhibaato kama taagno ciidanka dawladda amnigeeda sugtay gaaraan militariga Soomaaliyeed wax dhibaato kama taagno shacabku waa joogan waa amni meeshan safe no waa ganacsiga wax walba furiyihiin ha dadku waxay leeyihiin cabsi ka jirto may wax cabsi ma jiraan anagu waa ku noolnahay deegaanka waa deganahay ummadda Soomaaliyeed nahay shacabka nahay waa kaas meesha waa ku noolnahay wax dhibaato kama jiraan meesha ganacsiga deegaanka ma ka mid tahay ha maxay iibisa bal ka hor dukaana meesha ku leeyahay waa kaas ganacsi waa kala socdaa waa furiya waa saad u jeedo amnigeedu waa safe meesha ha maxay rajeynaa marka waxa rajeeha san si ka fiican ha waa kaas Zakariya Axmed Muuse TV-ga Shabeelle degmada aadan yabaal gobolka Shabeellaha Dhexe